madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo ay weheliyaan wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Umar Cali Cabdillaahi Bade iyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Cabdiqani Maxamuud Caateeye iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo weliba xisbiga talada Soomaaliland ee kulmiye ayaa maalinta koobaad ee ololaha doorashooyinka kaga qayb galay deegaanada Dabadilaa Farda lagu xidhiyo weliba magaalada Geerisa oo ka kala tirsan gobolka Awdal iyo gobolka Seleele isku soo baxani ballaaran ee maalinta koobaad cududooda ay ku soo bandhigayeen musharaxiinta ka sharaxan xisbiga kulmiye maamulka gobolka madaxda degmada qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa si ballaaran ugu soo baxay haddaba ololaha xisbiga iyadoo dhanka kale deegaano tiro badan si ballaaran loogu soo dhoweeyey wafdigani intii uu marayay una muujiyeen taageerada cududda leh ay u hayaan xisbu xaakimka kulmiye dadweynaha deegaanadaasi ugu horreyn haddaba madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland markii uu soo galay magaalada Geerisa waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka Soomaaliland waxaana halkaasi ay ku siiyeen salaan sharaf haddaba munaasabad ballaaran oo loo qabtay isu soo baxani ayaa waxaa halkaasi ka hadlay madaxda wafdiga musharaxiinta iyo weliba maayirka degmada Lukaya Cabdillaahi Cali Nuur wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka madaxweyne waxaan ku soo dhaweynaynaa magaaladaadii dadkaagii baan ku soo dhaweynaynaa haddaan anu sagaashan jir baan ahay dee odayno kii wax laga qaato buu ahaan jiray waar haddaan maaragtay kulmiye aan gacan weyn iyo lacag iyo waxaa ka weynay tag baan ka helnay tag waxa tag la yidhaahdo maanta waa maalintii xisbiga kulmiye oo ololaha dalka uga lahaa waxaa la doonayaa meel walba oo bulshada taageersan xisbiga kulmiye ay joogto in lagu muujiyo cududiisa iyo taageerada ay meeshaasi ay u hayso xisbiga iyo musharaxiinta ka sharaxan meesha tagga kuule arintubuha meesha tagga kuule ee aad horada ugu caalamaashay ee maantana aad filayso wanaag iyo horumar dicina ku tilmaami mayso laakiin waxaynu soo baxnay inaynu cududeena muujino inaynu awooddeena muujino inaynu dadka u sheegno in Geerisa ay tahay magaalo u qalanta in halkay joogto hore looga qaado waxaa habboon inaad iswada abaabushaan 6 cisho ka hadhay maalinta doorashada inaad aad u dadaashaan oo nin waliba xildhibaanku wato uu waxa weeye cod badan sidoo gaarsiin lahaa u soo bixi lahaa yar iyo weyn aad ku dadaashaan hadduu Ilaahay yiraahdo ugu dambeyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay soona xidhay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Alxaaji Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici isagoona halkaasi ka soo jeediyey khudbad dareen badan oo dhinacyo badan taabanaysa waxaana uu ka warramay ahamiyadda ay leeyihiin doorashooyinka isku sidkan ee dhawaan ka qabsoomi doona dalka Soomaaliland annaga maanta inoo koowayd inuu diyaargaroodeen baa halka ka caddaatay waana idinku mahadnaqayaa taaqudheedana sida wanaagsan ay ugu diyaargaroodeen una dabaaldegteen una muujiseen taageeradiina aad siiyeen xisbiga kulmiye waa idin ducaynaa runtii aniga markastoo soo maro farxad baan kaga taageersan tiriibka horena si wanaagsan bay soo dhaweyseen oo iga farxiseenoo maantana waxaa tahay geedooda kulmiyaa tahdeen inay noqotay inay inta badan aan noogu helisa annaga Xuseen Caateeye Gaafana Universal TV magaalada Geerisa